السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وجنرال نوراني واي دمانتين وايد السلامي ان مالتي caawa waxaan rabaa inaan update insiiyo maana xaaladda meesha ay marayso inkastoo maaragtay dad oo carabta kamid ay soo waxaan oo yiraahdaan war Nuuraani oo saa wax u jira macnaha masirta dawladda qabiilka u sheegaysa iyo maaragtay dad ay ugu yiraahdaa dadka qaarkood waxtaa maaragtay bari oo laba wiilna la ka dili jiray hotelkii Elite Hotel laba wiil oo dhalinyaro ah oo la ka dili jiray ayaa maaragtay waxaan bilaabay inaan familka inaan duruusiyo sida qaraxyada looga hortago intay u qaybsamaan iyo waxaas oo dhan inaan maaragtay idinka xataa wax xasuustaan duruustaas حتى رجع يسوي عيا ويقول هجرين ما والتي معناها maxaa qoysku maaragtay qarax aysiin looga badbaadaya oo baraysaay maana dad far badan asaas idii jiray waa arin la yaabo waaye maaragtay runta hadaan aadiin sheegin macnaha ma waxa rabtaan sidii 1991 subax idinkoo kii iskool aadayay kii shaqo aadayay idinkoo guryihiina aaday inay magaalada Muqdisho xabad ka dhex bilaabatay oo cirka dheer dhulka dheer wax laga diyaar garoobo male baabuur shidaal lagu shubto male meel loo qaxay male dad wada tashaday male ayaa nagu dhacday 91 marka taas oo kale inay dhacdo lama rabo sababtaas ay sababta aan maaragtay xaaladda dhabta ee jirta ay idinku sheegayo bal idinkana ka tala bixiya dad tira yar ayaa waxay ugu yiraahdaan arrimahan sheegin oo dadka ka qari oo qoyska u sheegin in khataraha jira iyo waxaas laakiin kama dhageysto waxaan yiraahdaa maaragtay waxaas maaragtay dambi maaha ina maaragtay familka u sheego meesha oo khatarta ay marayso iyo wax oo dambi maaha maaragtay dawladana anigu kama soo horjeedo oo xasuusnaada maaragtay aniga hooyaday xataa reer diini waaye reer dalay ka tahay madaxweynaha Soomaaliya hooyaday isku jifo hoose waaye oo madaxweynaha waa maaragtay abtigay waaye ma nin oo madaxweynaha ka soo horjeedo miyi laakiin labadii madaxweynuhu ka horeeyay midna 6 bilood loogu daray midna 1 sano loogu daray asagii oo 2 bilood ay u sii dhiman tahay ayaa maaragtay hawii khadiyaan laga taagan yahay oo hub urursi iyo kibir iyo musharaxiin midoobay oo kulligood hal qabiil iyo waxaas jira marka waxaas ina idin kaga diga waaye waa maaragtay waajib saaran waaye ina idin sheego meesha ay wax marayaan xaaladuna hadda meel akhbaaraadkii ugu dambeeyay guutada koowaad ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed hore idinku sheegay waa gabigoodaba waa abgaal baabuur gaashaaman iyo adduunyo iyo teknika fara badan oo haystaan guutadaas urur kamid ah ayaa waxa xukuma nin la yiraahdo Sanay Cabdulle oo gaashaan la dhaxaa ninkii Sanay Cabdulle ahaa xalay magaalada Kaaraan iyo Yaaqshiid iyo xaafadaha afgaalku u badan yihiin teknika ayuu soo galiyay baabuurta dagaal ay gudaha la soo galay oo waa diyaar garoobayaan Sheekh Shariif laftiisana waaye oo taliyaha xoogga xataa waa abgaal laakiin waa iska laf yar waaye oo laangaaba wiilkan oo Sanay Cabdulle la yiraahdo ka laandheereysan oo nimankan agoon yar la yiraahdo Sheekh Shariif ka dhashay Xasan Sheekh xataa waa iska wacaysla waaye oo laf yar waaye oo maartay markii la yiraahdo abgaalka xagga dagaalka iyo hubka iyo nimanka kacsan waa nimankan harti abgaal la yiraahdo oo maartay laandheeraha nimankaas waaye maaragtay ninkaas Sanay Cabdulle la yiraahdo magaalada Muqdisho mararka qaarkood markuu baabuurta teknikada baabuurta dagaal ku marayo meel checkpoint haduu ku soo aado oo askarta birta dhaqso qaadi waayaan hatta askarta intuu laayo ayuu qoryaha ka qaataa macna wiil iska kibray oo sharci qabanaya iyo cid hor istaagi karta iyo ayuu hore u ahaaba haddana waaba ka sii darayba oo ayaan dhexdaas xataa Muuse Suudi iyo dawladda isqabtay markaasuu maaragtay 640 nin ayuu fronta ka soo saaray oo wuxuu soo dajiyay balcad qaarna magaalada Muqdisho soo galiyay wasiirka arrimaha gudaha ayaa u tagay oo habar gidira
iyo saraakiil booliis iyo dad loo diray wafdi ayaa u tegay wafdigii u tegay oo wasiirka arrimaha gudaha iyo wasiirka amniga uu ku jiro oo abgaal xataa wasiirka amniga waa abgaal intuu baabuurta xabadda karin horta iyo hubka ka dhigay ayuu yidhi idinkoo hub la-aana ila hadlaysaan haddii kale waa idinkoo dhan dabkaa idin saaraya markaasay ogolaadeen inay hubka ku wareejiyaan markaasuu la hadlay wuxuu yidhi magaalada xamar 5 askari oo ciidankayga ka mid ah ayaa magaalada muqdisho ayagoo habeennimo iska dhex maraya ayaa booliisku qoryo ku qabteen markaasay qoryihii ka qaadeen 5tii qore haddaan hadda la ii keenin wasiirka arrimaha gudaha iyo saadiq john nin la yidhaahdo generaal oo saleebaana labadaba wuxuu yidhi inta dhashiika ay wataan iyo hubkooda iyo ayagaba meeshaanaan ku xiranaya markaasaa wasiirka arrimaha gudaha xataa waa xiranayaa buu yidhi markaasaa la berberiyo layidhi wasiirkii amnigaa baryaayo afgaan isla yihiin war meesha ay ugu ceebeen uu yidhi maaragtay wasiirka amniga iyo taliyaha booliiska ee gobolka banaadir iyo wixii dhashiikayaal iyo hub ay wateen intaa qoryo ku fooror sida hubka ka dhigtay in adeer waxay ceebeene maaragtay xamara telefoon laga wacay waa balcad hadda meesha la joogo balcad 30 kilomitir waaye xamara muqdisho telefoon laga wacay waxaa la yidhi wasiirka maaragtay arrimaha gudaha wacaya wuxuu yidhi 5 qori oo ruushka si looga keenaya oo bacdooda ku jira iyo sanduuqyadoodii hadda baabuur degdeg ah la soo saaro 5tii la keenay sanduuqyadii hortiisa lagu furay 5taada qori waa kuwaanaya leeri oo booliiska hadda ka hor ay ciidankaada ka qaateen nimankan kaliya cafi markaasuu yidhi waa bixi kartaan waayahay marka wiilku waa wiil saas u kibray waaye oo maaragtay kibirsan waaye oo maaragtay